Amiina Daawud Al-Mufti Aani Mooshe waxay ku dhalatay mid ka mid ah xaafadaha dadka ladani degaan ee magaalada Ammaan caasimadda dalka Urdun sanadkii 1939 waxaanu waalidkeedu ugu wanqalay magaca Amiina Daawud Maxamed Al-Mufti qoyskoodu waa muslim isirkiisu ka soo jeedo qowmiyadda Sharkiska awooyaashood ayaa sanado badan ka hor u haajiray dhulka Urdun oo inta ay qabsadeen nolosha iyo deegaanka kuna dhex milmeen bulshada dalka ay meel sare ka gaadheen siyaasadda iyo dhaqaalahaba aabaheed waxa uu ahaa maalqabeen ka ganacsada dahabka adeerkeed waxa uu ahaa jenaraal ka tirsan ciidamada boqortooyada Urdun hooyadeedna waxa ay ahayd marwo waxbaratay oo afar af si fiican ugu hadasha xidhiidh aad u adagna la leh marwooyinka bulshada dabaqada sare ee dalka Urdun هدان مروق بوحيو استعمار كبال جيرينو بيدو قراعين بدكما عيارين بربار داملاين هدان مروق بوحيو استعمار كبال جيرينو بيدو قراعين Amiina waxay ugu dambaysta qoyska oo ka koobnaa 6 carruur ah oo ay ku jirto 2 hablood oo ka waaweyni xaasley ayaa ay ahaayeen 3 kalena wiilal ayaa ay ahaayeen waxay ku garaatatay koolkoolin ay labadeeda waalid la hareera taagan yihiin iyo kalgacal ku abuuray qab iyo inay isku aragto ruux dhigeeda ka sarreysa codsigeedu waxa uu ahaa amar qasriga qoyskoodana waxa ay ka ahayd muraayad la daawado oo qosolkeeda iyo codkeeda labadaba waalidku ku raaxaystaan Amiina waxbarashada sare ee Amiina waxa ay ula kowsatay gabadhnimo buuxda barwaaqo ku kor dhabankeedu labeen leeyahay oo quruxda Rabbi u dhaliyay uu ugu daray garaad iyo fariidayo عجبي عجيبي عويو سداقين عليو عرودم كيانو laakiin dabeecadan iyada oo kale laga filayn ayaa u dheerayd inkastoo aanay gurigooda dhan u dhaafin haddana waxay la kacaantay nacayb xad dhaaf ah iyo kasantaag badan oo ay u hayso dhaqanka qoyskeeda ee dhowrsoon waxa ay si joogto ah u yeesi jirtay dhaqanka carabta oo ay u arkaysay inuu xidhan yahay riyada kaliya ay leedahay iyo hadal haynteeda ugu badan waxay ahayd jacayl iyo dhaqan furfuran Amiina waxay ahaa saawo isku barteen wiil asalkiisu Falastiini yahay oo reer Urduna jacayl aan xuduud lahayn ayaa ay wiilkan u qaaday laakiin waa ay ku hungowday markii xilli uu qalbigeeda god weyn ku yeeshay uu sikadiisa uga gaabsaday waayihii adkaay nafteeda ka soo gaaray caashaqaa guray waxaa ku sii xumeeyay duruufaha ay ku jirtay ee ka dhashay isgedgediga abuurka ee kala guurka kutaanka carruurnimada iyo gashaantinimada iyo sida oo kale marxaladda kala guurka ee u dhaxaysay dhaqankii dhowrsoona ee lagu soo koriyay iyo nolosha furfuran ay ku riyooto wiilkani kama uu tagin una Amiina ee waxa uu uga daldoorsaday inan da'deeda ah balse deganaanshiye iyo quruxba dheer maalmaha ka mid ah ayaa iyada oo warmoog ay heshay warqad ka nixisay ama aynu odhan karno waxa ay noqotay warqadii nolosheeda iyo mustaqbalkeedaba bedeshay waa Basaam oo u sheegayay inuu kaga baxay haasaawihii iyo jacaylkii waliba kama uu tagin ee aflagaada iyo ereyo weerar ah ayaa uu ugu soo qoray warqadda waxaa tahay danaysato kibir badan si fudud isaga cadhoota oo dabeecad bah ah leh waa suuragal inay ahayd qofka uu sheegay Basaam laakiin naxariis darro ayaa ay ahayd inuu isugu daro ka tegis iyo hadalladaas qalafsan waxa uu farta ku fiiqay meelaha ay barbaarinteedu ka qaldan tahay iyo sida qaldan ay noloshu u fahansantay Amiina maadaama ay wiilkan Basaam jacayl aad u xoog badan u qabtay gaabsiga kaga yimi iyo hadallada uu quuray waxa ay ku rideen dhakafaar iyo u qaadan waa gilgilay qalbigeedii yaraa waxa markiiba ku abuurmay dareen faraya inay argoosato walbahaarkii caashaq ee ku abuurmay iyo murugada ay ka qaaday jacaylkii ku cadfuray awgeed waxa ay gashay xaalad ay nafteeda iyo noloshaba loolan kula jirto دولي
عدسيو عشر وانكب وحاعنا هدافيو انتوان إلا وعدنا إرسن ماي عدنا إرسن ماي khasaarihii ugu ogolaaftay waxbarashadii oo ahaa waxa ugu fiican ee qoyskoodu kula dadaalay imtixaankii dhammaysashada dugsiga sare ayaa ay ku soo baxday dhibco aan gaadhsiisnayn waxbarashadii jaamacadeed ee ay doonaysay maadaama oo laga warqabay jaamacadda ay rabtay ardayda dugsiga iyo dadka ka agdhow oo dhamina ay la socdeen doonisteeda waxbarashada amiine waxaa ku adkaatay inay kusii dhex noolaato bulshadana og in jaamacadda ay dhigataa ay tahay mid aanay iyadu dooran ee dhibcaha hooseeya ee imtixaanka ay heshay ay geeyeen wejigabaxaas ay kala kulantay natiijadii imtixaanka iyo imtixaankii jacaylka ee ugu horreeyey awgii waxa ay amiina ku tashatay inay waxbarashada jaamacadda u doonato dalalka yurub xilliyadaas dadka sida qoyska amiine aadka u ladan ee dalka urdun waxaa caado u ahayd in ubadkooda waxbarasho ugu diraan dalalka yurub sanadkii 1957 ayaa ay amiina ku biirtay jaamacadda Vienna waxa ay degtay guriga tirsigiisu yahay 56 oo ku yaala shaaraca St. Johann laakiin markii ay dhowr toddobaad deganeyd gurigan ayaa ay u guurtay dhismaha hoyga ardayda ee jaamacadda ay dhiganaysay qayb loogu talagalay ardayda shisheeyaha ah turbadiiba noloshooda amiina waxay gelisay farxad iyo raynrayn horle jawi yididiile leh oo ay nafta ugu sheekayn jirtay inay ugu yaraan ka soo durugtay dhaqankii tolkeed ee ay u arkaysay inuu xidhxidhan yahay وبهال قوميستو كلا باتانا انتيو بيلا هذا شعيلو مركوبات كاكولا هيلو كافوغا قنية وركاكو دحكيلي hase ahaatee nolosha ay ku farxaysay waxa ay dhalan rogtay shakhsiyadeedii iyo habdhaqankii lagu soo abaabiyey waxa qolka la deganaa ardayd aad u furfuran oo sii dhammaysanaysay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda waxa uu magaceedu ahaa Julie Patrick oo u dhalatay dalka Koonfur Afrika waxa ay waaye aragnimo dheer u lahayd nolosha reer Yurub goobaha leydhsiga iyo dalxiiska loo tago ee magaalada Vienna iyo xorriyadda aan dhammaadka lahayn ee ay dareemi karto inan ka timid dunida barigu Julie waxay amiina bartay sigaar nuugista waxay uga digtay inay wiilasha wax xidhiidh iyo saaxiibtinimo la yeelato maadaama oo ay imanayso khatarta ah inay uur qaado taasina ay mustaqbalkeeda waxbarasho mugdi gelinayso laakiin talada taas beddelkeeda ay siisay ayaa ay ahayd in baahideeda jinsiga ay ku damin karto dhaqan aan hore niyadda amiine ugu jirin oo ah xidhiidh dadka isku jinsiga ah Julie Patrick waxay amiine ku qancisay in macaamilkaasi uu yahay ka ugu habboon ay nafteeda ku qaboojin karto iyadoo aan khatar dambe iyo cawaaqib ka dhasha ka baqayn taasoo ay ku qanacday lana bilowday dhaqan xumadaas muddo markii ay wadayna waa ay qabatintay balwadaas waxay gaadhay heer aanay kaba maqnaan karin xiriirka jinsiga ee dhadiga la midka ah ay wax moodayso khajilaadii ay dhaqankii carbeed kala timid iyo anshixii islaam ee lagu soo barbaariyey ku raad lahaa ee ay iyadu u arkaysay inuu yahay dabar nolosheeda raaxada u diidan labadaba dhinac ayaa ay isaga tuurtay sanadkii koowaad ee waxbarashada markii ay amiina dhammaysatay waxaa la gaadhay dhammaadkii xidhiidhkii foosha xumaa ee ay Julie Patrick wadaagayeen maadaama oo ay waxbarashadeedii dhammaysatay waxa ay ku noqonaysaa magaaladii ay ka timid Johannesburg muddo gaaban gudaheedba amiina waxa ay u xaraarootay balwadii sida maandooriyaha nolosha ugu qurxin jirtay waxa ay nafta u sheegtay in aanay noolaan karin gabadh kale la'aanteed waxa ay u dhowaatay gabadh kale oo lagu magacaabo Chinfif Woodrude maadaama ay u arkaysay inay gabadhan isla fahmi karaan dhaqanadii xumaa waxa ay dadaal u gashay inay maamulka hoyga ardayga ee jaamacadda ku qancisay in loo ogolaado inay qol wada degaan Chinfif sidii ay filisay ayaana u dhacday oo bartii ayaa ay dhaqan xumadii ka siyaanba qaaday sanadihii waxbarashada ee jaamacadda Vienna ayaa xawaare maalmo yar oo kaysiiyay ku dhaafay iyadoo weli ku mashquulsan noloshii halowga ahayd iyo xorriyaddii aan xuduudda dhaqanka iyo diinta midna aqoonsanayn laakiin nasiib wanaageedu waxa uu ahaa inay weli sii waday waxbarashadii ilaa ay shahaadada koowaad ee jaamacadda cilmi nafsiga caafimaadka medical physiology ka qaadatay jaamacadda maadaama oo ay waxbarashadii dhammaatay qoyskooduna tirsanayay maalmihii ay ka maqnayd guri dambaystii ay jeclaayeen waxa ay noqotay in amiina ay dib ugu noqoto dalkeedii bishii 8aad ee sanadkii 1961 ayaa iyada oo ku qasban ay ku soo noqotay magaalada Amman